الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Abubakar Usmaan Cabdi. waxaan dhigtaa iskuulka Sacaada gaar ahaan fasalka 8aad. maanta waxaan ka hadlayaa dhibaatada ay leedahay magacyada xunxun oo la isugu waco. qofka in magac xun lagu waco waa shay mamnuuc ah oo xaaraan ah. Allahna waa uu inaga reebay. Allah quraankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayyuhalladhiina aamanuu laa yaskhar qawmun min qawmin asaa an yakunuu khayran minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. haddaba qofka waa in laga ilaaliyaa magacyada xunxun iyo naanaysada xunxun. waxaa la rabaa qofka hadduu uu ku dhaho magaca ma jecel iga daa inaad ka dayso si ay acmaashaadu u wanaagsanaato sida soonkaaga. naanaysada tilmaamayso wanaaga qofka waa lagu wici karaa. tusaale ahaan Abubakar Sidiiq waxaa lagu naanaysi jiray al-Atiiq. Cumar bin Khadaab waxaa lagu naanaysi jiray al-Faaruq. Uthmaan bin Affaan waxaa lagu naanaysi jiray Dil-Nuurayn. Khalid bin Walidna waxaa lagu naanaysi jiray Sayfullah. haddaba Allah tabaaraka wa tacaala xaqa ana waafajiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.